magaalada Hargeysa laga xusay aasaaska ururka SNM oo ku beegnay 6dii bishii afraad ee sanadii 1982 munaasabad ballaaran oo arintaasi lagu xusay ayaa waxa ka soo qayb galay xubno ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliland marwada koobaad ee madaxweynaha qaar ka mid ah saraakiisha ururka SNM iyo waliba dadweyne kale oo aad u tiro badan ugu horreyn waxa munaasabadaasi hadallo kooban ka soo jeediyay wasiirada wasaaradaha duulista hawada cadaaladda maaliyadda marwada madaxweynaha iyo waliba qaar ka mid ah saraakiisha ururka SNM maalintii SNM la aasaasay aynu u dabaaldegno oo wadarkaysan dhalinyaradeena iskuuladiisa u soo baxeen dumarkii xaafadihii mujaahidiintii waynu u ducaynaynaa kuwii dhintay waxaan leenahay ilaahay ha u naxariisto ururka SNM wuxuu ku guuleystay markii uu gacanta ku dhigay dalka taladiisii wuxuu ku guuleystay in uu walaaleeyo nabad ka dhex dhigo beelihii ka soo jeeday Soomaaliland muxuu ahaa colaadda la dhex dhigay iskii ugu dambeeyay aynu ku xusno maalmaha inugu qaaliga mid ka mid ah waa ahaa maalintii bucaduuray 17 Oktoobar halkan waynu ka soo wada qayb galnay dhinacyada siyaasadda maanta ma garanaysaa ku kala qaybsan ee halgankaa ka soo jeeday dhammaan waynu isugu nimid waxaanaynu isla qaadanay inaynu ka wada shaqayno munaasabadaha noocaasa mujaahidiintii maxaan ku dhahaa SNM siiba naafadii iyo agoontii iyagana sida wax loogu qabanayno runtii halkan waxaynu ka qaadanay inaynu bal sida wax loogu qaban karo aynu ma garanaysaa isaga nimaa guddigii aynu u qaybinay ilaa maanta waxaan ogahay inaanay inoo keenin wax tala aanay keenin 9 sano dadkii lagu xoreeyey xoreyntaasina waa hadhkaynu harsanayno nimika ku naaloonayno waxaan ku soo gabagabeynayaa mujaahidiintii dagaalkaa ku dhimatay Allah u naxariisto madan iyo sharaftan iyo nabadgelyadan aynu ku noolahay leeynoo hirgeliyay ee mujaahidiintii wixii shahiiday iyo kuwan curyaameynta ama cagaala ama dhitinaya ama naafoobay ay inoo galeen waxaynu uga jeednaa maanta kale inaynu ubadkeenna kuwii yaryaraa ee markaa aan iyagu waxaa dhex joogin aynu dareensiino taariikhda dalka loo soo maray iyo gobonnimadan iyo raaxadan maanta aynu harsanaynaa siday ku timi iyo mas'uuliyadda ciddii lahayd Cabdirashiid